magacaygu waa Xaawo Cabdi Dhiblaawe waxaan dhashay 1947 waxaan ku dhashay Xamar Cabdulcasiis district oo dhihi jiray waqtigaas Kaamba Amxaaro waxbarashadeedii dugsiga dhexe ee sare Xamaran ku dhameystay 1964 Agoosto 28 anagoo 9 arday ah ayaa waxaan qaaday Soviet Union dawladda Ruushka oo hore kala furfuratay hadda 7 sano ayaa noogu dhamaatay Soviet Union oo 64 tagay waxaan ka soo noqday 71 markii aan dhameeyay jaamacadda mediciinada oo waqtigaas aad u dhib badneed si loo dhameeyo ay sahlaneen 14 sano ka shaqeynayay jaamacadda ummadda aniga isbitaalkaygu wuxuu ahaa kii Soomaalida oo qof kastaba ay iimaanaysay albaabada u furnaayeen markii ay abaarta dhacday oo qaxootiga dad Soomaalida isu cuntayna oo magaalooyinka laga baxay magaalo kasta waa laga yimid dhul oday xoogaa ee baan deganay aniga dadkii soo qaxay biyo iyo deegaan iyo caafimaad waa siiyay waana dejiyay meeshaas waxaa soo degtay 9,000 15,000 oo qoys oo qoyskii uu yahay 6 qof waa 9,000 qof 9,000 hay'adahan uga ilaalisa jireen dhihi jiray ii soo warday dadkaygii la ayay waxa ii imaan jireen hay'ado waana abiilkayga marka abiil dirsado waa la ii soo jawaabi jiray mar walba